الله الرحمن الرحيم. cashirkan waa cashirkii toddobaad waxaynu soo qaadanay cashirkii lixaad oo aynu ku qaadanay sida muuqaalka ama noocyada muuqaalada loo diyaariyo. cashirkan waa cashirkii toddobaad waxaynu ku qaadan doonaa si guud waxa aynu ku qaadan doonaa sida muuqaalada loo qurxiyo. markii muuqaal aad qurxinayso dhowr nooc ama dhowr hab ayaad adeegsanaysaa. annagu hababka ugu wanaagsan ayaynu adeegsan doonaa adigoo isticmaalayo mobilkaaga. waa inuu mobilkaaga yahay Samsung, haddii uu yahay iPhone waa gooni, waana inuu yahay laptop. applicationka aan isticmaalayo waa applicationada ugu fiican ee muuqaalada lagu qurxiyo. kusoo dhawaad cashirkeena. waxa aynu joognay muuqaalkan oo noocyadiisa kala duwan aynu u soo habeynay. maanta inaan muuqaalkan qurxinaa rabnaa. dhowr nooc ayaan u qurxin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan ku baro habka ugu wanaagsan ee aad u qurxinayso. soo dhawaada. ugu horeyntii waxyaabahan oo dhan shaqooyin gooni ah ayay qabtaan, laakiin hadda annaga ujeedkeena ama targetkeena waxa weeye sida muuqaalkaada aad u quruxsanayso. marka muuqaalkaaga aad quruxsanayso waxaad isticmaalaysaa meesha ay ku qoran tahay filter. kolkaad tiraahdo waxaad ka sii geli doontaa meesha ay ku qoran tahay adjust oo ah sixitaanka. meeshan weeye meelaha aan isticmaali doono. marna waxaan dhihi doonaa plus, marna waxaan dhihi doonaa minus. aynu isla soconno. qaybtaas horaan joogaa, qaybtaas horaan jooga ilaa iyo waxaan tagi doonaa meesha ugu dambeyso. hadba aniga muuqaalkayga sida uu qurux badnaan doono. haddii aan ka dhimo waxa uu noqdo mugdi, haddii aan ku farno wuxuu noqdo iftiin. hadba aniga ayay igu xiran tahay. cataract ayaan adeegsan doonaa. qaybta ay qoran tahay contrast haddii aan dhaho plus haddii aan dhaho minus waxa uu ku qurux badan yahay inaan dhaho plus. qaybtaas waxa waayo muuqaalkaaga sida uu kugu ekaay. sidaana waa sida uu hadda noqday. aynu wadno. qaybta ay ku qoran tahay wartham plus iyo minus hadba mid weliba qurux gooni ayuu leeyahay, laakiin aniga inaan ku badisto ama aan oolgeysto ayaa ila qurux badnaatay. hadba adiga tan kula qurux badan ayaad raadsan doontaa insha allah. qaybtan kala tag ay qoran tahay tint haddii aan dhaho plus waxaa galay guduud, haddii aan saas dhahno waxaa galay cagaar xigeen. hadba kabtaada sida aad ku xaysiisanayso adiga ayaa og. hadda aniga xoogaa waxaan geyn doonaa 28. muuqaalkayga kowdii hore sidaa buu ahaa, haddana sidaasuu noqday. sidaa buu noqday. waxaa loogu talagalay in muuqaalada lagu qurxiyo. hadda waxa aan anigu adeegsanayo waa marka fiidiyowyadoo kaleento aad buu kuugu qurxin doonaa. aniga laakiin saacadan ama kabtan ayaan rabaa inaan ku baraktikeeyo. anigu hadda intaanba way igu filan tahay. kadib waxaan dhihi doonaa save. qaybtaas kor ayaan taaban doonaa, kadibna saving ayaan dhihi doonaa. waa kolkaan u baahnay inaan muuqaalkayga quruxsado. hadba kabtaas bal quruxdan ka dhigay feeri iyo sidii hore ee ay ahayd. muuqaalkana sidaan oo keento ayaad u quruxsanaysaa. cashirkan waa cashirkii sida aan filayo cashirkan waa cashirkii toddobaad. waxaynu ku qaadanaynay sida muuqaalada loo qurxiyo. intaa ayuu ku ogyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ardayda cashirada soo baraktikeeyaan waa ay mahadsan yihiin. kuwa aan soo baraktikeeyn ha soo baraktikeeyaan. caajiska ha iska saarano. koorsada ha ka faa'iidaystaan. cilmiga adduunka maanta waxa uu aaday digital. wax qurxin ayuu aaday iyo weliba wax qurxin iyo wax hagaajin. ganacsi haddii aad leedahay ama aad tahay qof isticmaalo baraha bulshada muhiim ayuu ku yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.